السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدين وداقناهي waxaynu dhamaanteen aad ugu dadaalaa nadiifinta guryaha aynu ku noolahay inagoo guryaha nadiifintoodana u marayna qaabab kala duwan. Haddaba qaab dadkii hore ay guryaha u nadiifsan jireen qarniyo ka hor imikana la ogaaday inay tahay qaab cajiib ah. Qaabkaas oo ah in milixda lagu nadiifiyo guryaha. Haddii milixda aad ku rashayso hareeraha guriga waxay guriga ka ilaalinaysaa dhammaan noocyada kala duwan ee cayayaanku inay ku dhashaan. Sidoo kale haddaad ku rashayso guriga gudihiisa iyo qolalka dhexdooda iyo meelaha alaabta la dhigto waxay ka ilaalinaysaa quraanjada nooca waaweyn ee had iyo goor la timaada meelaha cuntada lagu kariyo inay guriga u soo dhawaato. Sidoo kale milixda waxa lagu nadiifiyaa qasaaradaha aynu dharka ku maydhano adigoo waxoogaa milixa ku shubaya halka saabuunta aynu gelino marka aynu qasaarada soo nadiifinayno waxay qasaarada u soo nadiifinaysaa si cajiib ah. Sidoo kale roogaga guryaha dhex yaala haddaad waxoogaa milixa ku rashayso waxay meesha ka saaraysaa bakteeriyada ama cayayaanka aadka u yaryar ee aanay isheenu qaban karin. Waxa sidoo kale milixda lagu nadiifiyaa weelka aynu isticmaalo iyadoo si cajiib ah u soo nadiifinaysa weelka. Sidoo kale daaqadaha guriga haddaad milixda ku rashayso waxay ka ilaalinaysaa inay guriga u soo dhawaadaan dhammaan noocyada kala duwan ee cayayaanku. Sidoo kale milixda waxa lagu maydhaa gidaarka guriga iyadoo si aadan u nadiifinaysa. Sidoo kale muraayadaha ku yaala daaqada gaariga haddaad waxoogaa milixa ku rashayso waxay u soo nadiifinaysaa si aanay wax kale u soo nadiifin.